nasiib darro waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u sheego madaxdii naga soo tagtay ee garowe nooga soo tagtay ee saddexda maalmoodoo muddadaa naga qaadatay naguma soo noqonin jawaab naguma soo celinin markaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo raggii kale dowlad goboleedyada naga maqnaa markaan u nimiday oon arrintii u sheegnay sidaanaa la isla gartay nama ayan dhihin naguma soo warcelinin bannaankaan ka maqalnay murashaxiinta doorasho ma ogola iyo intay diidan yihiin iyo waa u sheegnay iyo liiskii keenaan dhahnay iyo waxyaabo sidaas oo kalea waxaa rabaa dadka soomaaliyeed inaan iyaduna u sheego qadiyadda maanta taagan qadiyad oo makaanika ah oo bakeerigan inta ka qaada inta dhig ma aha waa qadiyad process ama muxuu ahaay wadiiqo inay marto laga rabo kalsooni u baahan wada ogol u baahan maxaanku yidhaahdaay isfaham iyo muxuu ahay is-aaminaad u baahan waaye marka arrintaasi waxay ku habbooneed labadii talon soo jeedo mid ka midaa jirta haddii wax lasoo soo garta xataa in la qaabeeyo oo shir inta la isugu yimaado shirkaas maxaanku yidhahdaay lagu waxeeyo oo lagu soo gunaanado oo la yidhaahdo intaana saasaa u garanay intaana saasaa u garanay halkaana waa noo dhiman tahay ama waa dhammaystirna la yidhahdo nasiib darro ma ayan dhicin annagoo weli sidii uga dhur sugayna madaxdii maanta waxaad aragtay ayay sii daayeen waa yimaadeen warkaad aragtay oo qaarkiis aan u qaadan karno annaga qadaf inuu yahay waa laga soconaa looma baahna waa la yeelaa iyo wax lamida iyo walaalayaal dadka soomaaliyeed waxaan rabnaa inaan u sheegno haddaan nahay midowda murashaxiinta dalkan hadda ayuu kala taagan yahay somalilanaa naga maqan gooniya isu taagnay leh wadaxaajoodkeeda muddo lagu soo jiro la raadinaaye qaar kale maanta haddana in ay sabab loo abuuro ay ayaguna waa gooniyaan isu taagnay berri inay yidhahdaan sababi karto dalkan suurtagal ma aha doorasho oo degaan hebel iyo degaan hebel iyo maamul hebel iyo maamul hebelaa ka maqan laleeyahay in la qabto suurtagal ma aha midnimada dalkaanay dhaawacee wadajirka ummadday dhaawacee dowladnimadeenay dhaawacee marka arrintaas waa qodob qodobka kale waxaa soo haray walaalaheenna muxuu ahay ra-iisul wasaaraheenna oo u weyn yahay iyo madaxda dowlad goboleedyada ee maanta la taagna siday u dhaqmeen sax ma aha waxaan qabnaa kuwaas waa maqan yihiin waa laga tashanaa waa laga soconaa laleeyahay oo aan leenahay war midnimadii ay wax u dhimaysaa ayaan saa la yeelin kuwa kale ee saaxiibada ee maanta taagnaayna ra'yiga maanta ay meesha ka sheegeen kuma maalaan dadkii shala doortay ra'yigaas ra'yi degaanadooda iyo dadkooda ay qabaan ma aha mana ku habboona walaxaanay dadka ku matelin inay sheegaan ma habboona in ay madaxweynaha maanta fadhiyo ayaan kursiga usoo boobaynaa usoo dhacaynaa dadka annagaa soo gacan maroojinayno in la yidhaahdo sax maaha madaxweynaha jamhuuriyaddana waxaan leenahay qaarna waa laga maarmaa inaad tiraadid qaarka kalena ciidamaan u daabulaanu geysanayo maxaanku idhahdaay xoog dadka iigu soo afduubayo nimanka odayaasha ay maanta la taagnahay saaxiibadaana ay raalli ku yihiin dadka soomaaliyeed ee deegaanada ay dowlad goboleedyada maanta meesha jooga ay matalaan raalli kamaa arrintaas lamana boobi karo ciidanna laguma boobi karo haddii shalay doorashooyin qaarkood xoog iyo ciidan lagu boobay tani intii hore waa ka weyn tahay ha loo gogol dhigo ha loo tartiibiyo ha loo dhimriyaan leenahay dalka in laysku haayo ayuu u baahan yahay madaxweynaha dalkaanoo la ishaysto isla jiro israbo isla fadhiyo meel go-aanno wada jir a gaaro ayaa shala lagu wareejiyey dadki iyo dalkiina inuu isku haayo oo sidaas ku sii xukumo hadduu joogayo oo si sharciga ku joogayo haddii aanu joogaynina dalkii oo ishaysto iyo deegaanadii oo ishaysto mid ah oo wareejiyo ayaa looga fadhiyaa madaxweynaha gadaal inuu inta fadhiisto dadka soomaaliyeed inuu la hadlo uu diido dadka maxaanku idhahdaa saamileyda ee siyaasadda doorka kule inuu la hadlo uu diido ee dad kale sidii ruuxaantii uu ka soo dhex hadla madaxweynaha xal uma keenayse waxaan leenahay madaxweynuhu ha ku noqdo taladaas dib ha u noqdo oday soomaaliyeedaa noqonaha hadda ka hor dadka ka ballan qaadee wuxuu ballan qaaday ha fuliyo oday soomaaliyeed ha noqdo ha soo dego dadka ha la fadhiisto askarta iyo hubka maalin walba lasii daabulayo ee shalay iyo daraad iyo usbuucyadii hore ee muxuu gada lagu daabulayay ee shalay iyo maanta maxaanku idhahdaa hiiraan lagu sii daabulayo ee daraad itii ka horreysay maxaanku idhahdaa dhuusa mareeb lagu sii daabulayay maxaa loo daabulayaa loo geynayaa doorashada in lagu soo dhaco waayo maamullada meesha joogaahay aamuslaantooda waxaan u qaadanaynaa ha naloo keeno askar waxa aan ku dhacnay inay ayaguna dhaheen madaxweynuhuna uu sidaas rabo ma suurowdo
ma dhacayso suurtagal sina kuma aha marka arrintaas waa khatar hadda ka horna waa sheegnay annaga qadiyadda aan madaxweynaha uga ra'yi duwannahay doorasho keliya ma aha dalka inuu khatar ku jiro waayo midnimadiisii inay khatar ku jirto waayo in maxaanku idhahdaa waddadaana ay ku dhammaato meel aan fiicnayn waayo waxaan leenahay ha la soo noqdo xalku marka intee jiraa xalku wuxuu jiraa in la wada fadhiisto oo la wada hadlo oo qadiyadda taagan waa masiiri waa ummaddan mustaqbalkeedii waa dalkan midnimadiisii waa isku hayntii ummadda kalsooni abuurkii dib u heshiisiintii muddada lasoo dhisaayo oo lasii xoojiyo waayo in boogihii la danqiyo oo dib loo dhaawacayo maaha dadkan meeluu soo gaaray lama dib looma celi karo lama waxayn karo iyo warka maxaan ku soo celcelinta ah sagaashankaa loo noqonaya la yidhi kan iyo waa caddayna haddana waa cadday sagaashanka cid u noqonaysa male cid u noqonay ciddii khaldan maanta gacanta laga qabanaa naga joog laleeyaha moogiye dalkaani hoog iyo halaag kale uma noqonayo ummaddaanna waa ka timida meeshaas caqliga ummadda iyo dareenka ummaddana in loo gafa ma aha oo la yidhaahdo wax ma garataan la yidhaha ma aha marka waxaan leenahay walaalayaal midowda murashaxiinta taladiisu waxay tahay xalka ha loo noqdo gogol ha la isugu yimaado dadka ay khusayso oo talada lahoo dhammu annagu aan ka midnahay ha yimaadaan caalamkana garab taagane maalin walbana kaalmaynayo ha soo fadhiista meesha ha joogo meel loo wada dhan yahay fagaaro ah wax la qariya ma aha wax weyn waaye meel la joogo fagaaro ah arrintaas ha looga wada hadlo ha looga heshiiyo horey ha loo socdo waxaan rabaa qadiyadda kale oon raba inaan ka hadalno oo aan maanta arrintan meesha uga hadlo waxay tahay waxaa beryahan suuqa la geliyey nimankan murashaxiinta ma rabaan doorasho 8 February in la gaaraa la rabaa kanaa la rabaa war annaga sidaynaba talaxumo iyo hoog kamaba talinabo dadki ka tali lahayna maahin dalkaanuun meel u jihaysan 8 February in la gaaro cidda mas'uuliyadda ka maanta haysa horta mas'uulka annaga mas'uulka ma ahin shalay heshiisyaa la galay dhuusamareeb 1 dhuusamareeb 2 3 dhuusamareeb shalay waxaa la lahay waa laga soconayaa la lahay ayadoo dowlad goboleedyada qaarkood maqan yihiin waxaa xaqiiqo noqotay inaan laga soco karin muqdisho la isugu yimid bishii September waa la heshiiyey heshiiskii waa maanta dhaqangelintiisa wax la isku haysto nasiib daro dadka Soomaaliyeed inay fahmaan waa heshiiskii inuu dhaqan galo waxa diidan waa dowladda federaalka waay iyo intii muxuu ahay inay wax u hoosaasisan rabto iyaga waaye waxa dalka ciidamada ku daabulaya doorashada in la boobo in la xoogo in la dhaco oo murashaxiinta mid kamida oo la yiraahdo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in wax loo dhaco wax loo boobo rabaan war ummadan masiirkeeda lama dhici karo herti lamana ordi karo kuwa rasaas ku haminayna ka joogan leena madaxweynaha ka joogan leena dalka 8 February annagu taariikh qoran oo dastuuri oo meel taalo waay waa laga guuriyay muhiim ma ma dhaheen laakiin xalan rabnaa wax socdaan rabnaa doorashadii aan rabnaa oo si sax ah ku socotaan rabnaa haddii doorashadii oo si sax ah ku socoto 8 February ay nala dhaafto waaba socotaa waaba ku dhex jirnaaye maanaga ka dhex qayli karno laakiin doorashadii la bilaabi ma 8 February ay rabaana dadka lagu eedayna wax kale uma aragna waqtiga in la si durgsado in la rabaan u aragnaa hadday dhab ka tahay 8 February in la gaarin ama 8 February iyo agagaarkeeda wax socda inay ku soo dhamaadaan hadday dhab ka tahay wax sax ah la bilaabi lahay dowladda madaxweynaha iyo wiilasha u shaqeeya waxaan leenahay 8 February haddii balaaya dhacaysa adika keeno haysaan dalkan 8 February doorasho inay dhacday ahayd haddaanay dhacaynina walba inay soo muuqatay wadada ku soo jirtay inay dhacaysay ahayd 27 December baarlamaanka waqtigiisa dhamaaday madaxweynaha waqtigiisina waa 8 February asalka waxa ana waa baarlamaanka haddaan baarlamaan jirin ama 8 February madaxweyne la doorana ama 8 June iyo July iyo December 2021 xataa ama madaxweyne la doorana haddaanu baarlamaan jirin baarlamaanka iyo doorashadiisa waaye mas'aladu waxay ka taagan tahay waxa in la dhacal la rabo ciidamada kor iyo bari loogu daabulayo diyaaradaha loogu qaadayo na waa arintaas dadka Soomaaliyeed inay fahmaan aan rabnaa bis mowqifkeena wuxuu yahay war walaalayaal wax la dhici karo wax la boobi karo ma jiraan dadkuna raali kama ahe
intaan ka wada tashano wax Soomaali isku raacsan tahay keena oo annaga hadaan rabina awalba waa naga tagi jirteen idinku isku soo raaca laakiin adikana idima rabno murashaxiintii iyo mas'uuliyiintii haddaad tihiin annaga dhexdaynana isma rabno koox yaroo iswadato maxaan ku raraa suuq madow ahaa meelaha wax ka bixayso masiirka ummadda Soomaaliyeed suuq madow kuma socon karo afar nimo isjecel ma wadi karaan afar maxaan ku radaa hoosta muxuu ahay balaayo uga heshiis isma wadi karaan alla dhiga xaajada madaxweynaha iyo prime ministerka iyo guddoonka baarlamaanka iyo cid iyo madaxweynayaasha dowlad goboleedka waxaan leenahay ha noqonina ninkii yiri hilibkii madaxa inta saartay hilibka hal qaybiyo war dhulka soo dhig waa la qaybila hilibka laga kala ma hal qaybiyo madaxana ku siisitay hilibkii ha noqonina aan leenahay xaajada dhulka soo dhiga waa laga wada tashana waana lagu heshiina waana lagu nabadooba waana la isku jeclaana la isku nicmaayo waxa qaanuunku qabo sharcigu qabo dadku rabaan la isku manaco aad iyo aad u mahadsantiin mar kale waa ku celinaynaa waxaan leenahay doorashada iyo mustaqbalka iyo masiirka ummadda iyo dalka midnimadiisa waayo waxaan ka hadlaynaa hebelaa xagga looxada iyo hebelaa loo jumhuuriyo hebelaa sitoo laga soo dhigaa iyo ma ahan Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier